yaxya nuur xuseen oo 25 jir Soomaali Swedish ah ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray warshad shidaalka lagu sifeeyo oo uu ka shaqeynayo oo ku taalo degmada Alver ee duleedka waqooyi ee magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. goobta uu ka shaqeynayay marxuumkan Soomaali Swedishka ah ayaa waxa ay shirkadan u ahayd terminaal ay ku qaybiso howlaheeda kala duwan sifaynta batroolka iyo sidoo kalena xarun ay ku farsameyso howlaha kala duwan ee ay shirkadaasi dhanka shidaalka iyo wax soo saarka ka qabato. marxuumkan Soomaali Swedishka ah ayaa lagu soo waramayaa in uu warshadan kaga shaqeynayay dhanka hagidda wiishashka xamuulka qaado. waxa uuna sitay marka uu dhaawacan soo gaaray calanka oo uu ku hagayay ninkii wiishka ku xambaaraya xamuulka ka oo uu u jiheynayay dhanka saxda ah ee ay tahay in uu wax dhigo. ayeshee markii uu ku soo dhaca ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray taasoo sababtay dhimashadiisa. marxuumkan 25 jirka ah ee Soomaali Swedishka ayaa lagu soo waramayaa in uu shaqadan uga yimid dalka Sweden. waxa uuna bartay oo uu ahaa injineer dhanka farsamada ah isaga oo la sheegay in uu aad ugu faraxsanaa goobtan cusub ee uu ka shaqo bilaabay taa oo u ahayd meel uu aad ugu qanacsan yahay. marxuumka ayaa eheladiisa lagu wargeliyay sidoo kalena booliiska iyo hay'adda badda Norway ayaa iyagoo wada jira waxa ay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadan shilka ah ee sababtay geerida marxuumkan. qareenka booliiska Sigrid Suland ayaa ku waramayso in qof lagu tuhmayo xaaladan ka oo la sheegay in ay booliiska wareysanayaan waxna ka weydiinayaan sida uu shilka u dhacay. waxa ayna hadda booliiska iyo hay'adaha kale ee amniga ay wadaan baaritaan ku saabsan kiiskan sababay shilka uu ku dhintay wiilkan Soomaali Swedishka ah ee 25 jirka ah. halka ay wararka kuwooda ugu door karoon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.